عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijka caawa waxaan rabnaa inaan ka hadlo ama codsi aan soo gudbiyo. codsigaas oo ku aadan janaalku sida aragtaanba waa janaal cusub. janaalku wuxuuna ka sheekeeyaa ama barnaamijka aan kusoo qaadanaa sidii ardayda loogu kordhin lahaa ama dhanka teenisyada ama dhanka practice-ka ama dhanka grammarka loogu dhisi lahaa. marka macalinka wuxuu rajeynaa in fadlan mar kale iyo mar kale aad u imaamadaan, aad u saartaan subscribe, share, like intaba aad u dhahdaan. waxa maanta teacherka uu ka hadlaa waxa waaye waxa ardayda muhiim u ah ama important u ah. maanta waxaad haysataa ama qaab online waxaad ugu baranaysaa sida teenisyada iskugu bedeli lahayd iyo sida aad u baran lahayd conversationka iyo sida aad u baran lahayd grammarka si online ah. marka fadlan saa u hesho garaamo badan, teenisyo fara badan iyo casharo saad u hesho fadlan noo saar subscribe, share noogu dar, like noogu dar. waa codsi. waxaan rabay in online aan usoo galo, live aan usoo galo, balse way ii suurtagal waayse. laakiin saacadaha ama waqtiyada soo aadan waxaan rajeynaa inaan live kusoo galo. ilaa wax walba way qoran yihiin, waxaan markaa sameynaysid way qoran yihiin. marka waxaan rajeeyaa saacadaha ama timeka soo aadan inaan soo gali doono si live ah, aanan igu sharxi doono si live ah. balse hadda waxa waaye waa codsi. waxaan rajeeyaa codsigaas inay iga aqbali doontaan dhammaan asxaabta ku xiran janaalka Engineer Maxamed Ibrahim Cumar. fadlan teacherka loo imaamado. macalinku wuxuu yahay in ardayda uu dhiso oo wax ardayda ka maqan uu u fahansiiyo. asalka hore dadkii hore markaad la sheekaysto waxay ku dhahayeen maanta waxaad haysatiin jaanis fara badan, waxaad haysatiin teknolojiya cusub, waxaad haysatiin internet, waxaad haysatiin free. asalka hore ma jirin wax free ah, ma jirin wax oo teknolojiya cusub ah, ma jirin wax internet ah. qofka wax baranayo baleyska ama xarunta wax ka baranayo iyo guriga uu degan yahay waxa u jirta fogaan aad u dheer. qofka degan for example qofka degan Baarwax oo kale wuxuu wax ka baranayay Sanco, wax ka baranayay xilligaasna dadka og ama saa ognahayba ma ka shaqeeyeen baabuur. hadda waxaan haysanaa bajaaj, hoomey, baabuur kala duwan, baabuur raaxa haysanaa. asalka hore dadka hore waxaas dhammaysan waxay haysteen xaajiyada hadda oo wadanka ka baxday. laakiin hadda dadka qaar hal laba xabo ay ku dambeeyaan al raaci jiray xaajiyada. marka adig iyo xaajiyada adigaaba orod badanba. hadda maanta waa weyn adag orod badan. xaajiyadaas marka la buuxsamaa la sugaa. ma haysan lacag EVC loogu soo tuuro, ma haysan xeral farad laga saaro oo iska soo baxaa. ama walweyna maxaajiyeso iska raaca. mana haysan teknolojiyo ay wax ka raadsadaan, ma haysan online. balse maanta alxamdulillah waxaan leenahay nasiibaan leenahay. waxaan haysanaa teknolojiyo cusub, waxaan haysanaa internet, waxaan haysanaa maanta waxaa noo taagan waalidaa noo taagan oo nagu garab siinayo, waladaa noo taagan oo nagu garab siinayo saan berito aan u noqon lahayn dad meel soo istaaga lagu nasado. marka janaalku ama teacherku wuxuu ka hadlaa waxay tahay sida ardayda ay ku dhisnaan lahaayeen. waxaa jiro janaalyaal fara badan jirto oo lagu barto, qaar lagu barto teknolojiyo, qaar lagu barto math and physics, qaar lagu barto programyo. laakiin janaalkani waa janaal ka sheekeeya sida ardayda loogu dhisi lahaa qaybta Englishka, khaasatan grammarka iyo teeniska intuba iyo conversationka. maanta markaa fiiris caalamka luqadda inta ugu badan lagu hadlo waxa waa luqadda Englishka. maanta waxaad joogtaa Soomaali, tomorrow waxaad aaday England ama waxaad aaday America, meel kasta aaday. marka luqadda koowaad ee lagu hadlo maxay tahay? waa England oo English waa. marka haddaanan English aqoonin mala qabsan kardin. waa inaad wadankaas markaad tagtid waa inaad bil iyo 6 bil iyo 2 bil waa inaad la qabsataa Englishka luqadda aad barataa. balse haddaad iska dhisto aduu waxa waaye waxaa helaysaa bis waxyaabo kale kaasii dhiman inaad heshaa laga yaabaa. marka janaalku wuxuu u horseedaa ardayda sida uu uga dhisi lahaa Englishka, khaasatan teeniska, grammarka iyo conversationka. marka asxaabey dhammaan asxaabta ku xiran janaalkani fadlan
ala gaarsiiyo asxaabta si ayagana uga faa'iidaystaan ee u noqdaan kuwa ka dhinsan dhanka practice-ka iyo dhanka ka dhisan conversationka iyo dhanka tenniska intaba. Marka asxaabta waxaan leeyahay fadlan hala share gareeyo, subscribe hala saaro, like ha loo wixiyo. Caawa aad aan u jeclahay inaan live soo galo balse way ii suurtagali weysay. Marka waqtida soo aadan ama time-yada soo aadan aan rajeeyo inaan live soo gali doono. Marka t-shirt-ka ha loo cimaamado, ha loogu turo cimaamada si arday fara badan ay u gaarto micnaha. T-shirt-kana ahaanteena waxaan rajeeyaa casharo fara badan oo asxaabta iyo ardayda ku xiran channel-kani xiisi geliya inaan soo geli doono. Marka waxaan rajeeyaa asxaab badan, arday badan inay ka faa'iidaysteen ee la qabsadeen. Inta kalena waxaan rajeeyaa ayagana si wanaagsan inaan u soo dhaweey doono. Waxaan leenahay welcome with open hands leenahay, ku soo dhawo gacmo furan. Marka waxaad ku cimaamadiin waxay tahay kaliya inaad u saartaan subscribe, share, like intaba inaad dhag ugu siisaan uga caawisaan. Marka asxaabta badanaa waxa la share gareeyaa ama like subscribe la saaraa waxyaabaha micnaha aan wax aan soo kordhinayno adigna faa'iido aan ku ahayn oo isbedelna noloshaada aan kugu sameynayno. Marka badanaa waxaa la fiiriyaa janaalada waxbarashada dhanka education dhanka teknolojiyada inaad fadlan like iyo share iyo subscribe aad qabataan rajeynaa. Marka qaasatan channel-kan t-shirt-ka ha loo cimaamado. Markasta waxaan ku soo celceliyaa t-shirt-ka ha loo cimaamado, wax kale ma ahane waxaan rabaa in arday fara badan iyo asxaab fara badan ay gaarto micnaha. Ma rabo in dad yar ay ku koobnaato ay ka faa'iidaystaan. Waxaan rabnaa dhammaan dadka inay kala faa'iidaystaan, anigana waxa iga faa'iidaystaa, idinkana waxa aan iga faa'iidaysto. Marka waxaa waaye marna cilmigana waxaa waaye wax kasta waxaa laga bixiyaa sakaa laga bixiyaa. Cilmigana waxaa laga bixiyaa qofka maanta hadduu wax barto waxaa looga baahan yahay in asxaabta kale uu faa'iideeyo. Wuxuu soo bartay inuu dad kale u faa'iideeyo oo ayagana ka bartaan si ayagana jiilka soo baxaya ayagana u faa'iideeyaan. Balse maanta waxaan haysnaa qaab macallimiin haysnaa noo sharxo, sidoo kale waxaan haysnaa online. Ilaa maanta teknoloji cusub, teknolojiya nagu soo kordhay. Teknolojiya nagu soo kordhay waxay tahay haddii maanta iskuul waxa ka baratid ama aad baratid waxa kale haddii fahmi weysid qaab online wax fahmi kartaa. YouTube aa jiro, Google aa jiro, wax laga raadsadaa. Marka waxaa waaye in fadlan hala raadiyo casharada channel-kan fadlan like iyo share iyo like intaba subscribe ha lagu qabto. Intaas ayga codsi waaye ha loo cimaamado, t-shirt-ka loo cimaamado, macalinka loo cimaamado, ustaadka loo cimaamado. Marka asxaabta waxaan idin rajeeyaa inaad t-shirt-ka ka farxi doontaan, aad dhammaan u share gareysaan dhammaan asxaabta u walgaaraan. Marka cimaamada ha lagu tuuro asxaabta. Live-na waan soo gali doonaa, maraa live soo gali doonaa, aan wada hadli doonaa. Marka aan ka arko ha lagu cimaamado. Waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Barnaamijka caawa intaas ayuu egyahay. Ma aan caawada cashar ma aan waxa waaye waa codsi waaye. Waxaan arkay micnaha ardaydii in asxaab badan oo aan loo share gareynin. Marka waxaan rajeynaa asxaabta kale ayagana loo share gareeyo. Maanta hal qof aad loo share gareeyo, hal qof kale u tagay, berito waxay noqonaysaa kumnaan share ay noqonaysaa. Marka aniguna waa faa'iido, idinkuna waa nii faa'iido, kuwa kalena waa u faa'iido, jiilka soo baxayna waa u faa'iido. Aan is garab qabsan waxa la gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Haddii maanta adiga aad share gareyso, walaalka u share gareyso, saxaabtada u share gareysid wuu ka faa'iidaa. Arday waxaa jira maanta qaybta English-ka aan ka dhisnayn, qaybta tennis-ka aan ka dhisnayn, qaybta conversation-ka aan ka dhisnayn. balse maanta Janice ay u tahay micnaha oo inta ku fahmi karo iyo waxaa jira arday macalinka wax uu dhigayo wax kasoo fahmi waaye oo maanta janaalkii wax ka fahmo wax ka barto oo berito uu noqdo mid janaalkii wax ka bartay isagana sidii wax uu iga bartay inuu isagana dad kale wax u sii bari doono arjaya marka waxaan markaa baratid waxaa asal hore waxaa la dhahay baro ama bar adigu wax baro ama dad wax bar marka maanta yani janaalkii wax ka barato berito dad kale wax sii bari marka waxaa rajaya janaalkan si fiican wax uga bari doontaan marka asxaabay hala share gareeyo caawa codsigaas ayaa wati waxaan rajeynaa asxaabta ama micnaha kalsooni aan ku qabaa in codsigay li aqbali doono oo aan arki doono micnaha intaas oo farxad aan arki doono ile farxadeedu waxa waa inaan arko sheerkii waxaas inaan arko waa marka asxaabay fadlan ciidamada lagu tuuro caawa live aan jecel inaan usoo galo balse way suurtagal weysay marka taamiyada soo aadan muqtada soo aadan rajay inaan live usoo gali doono marka asxaabay fadlan mar kale iyo mar saddexaad mar afraad mar shanaad waxaan leeyahay saar subscribe share like intaba dhag noogu sii si aad u hesho casharo iyo grammar iyo tennis iyo conversation adiga ku xiisi geliya iyo mahmaayo waan soo qaadan doonaa marka noqo qof ka dhisan grammarka ila grammarku waa muhiim maanta dadka arday barta English you have to learn grammarku waa inaad taqaanaa
ila muhiimad maxaa waaye grammarka waxaa waaye waa matoorka ingiliishka waa haddaa maanta grammar ah helin wax iskuma toosi karteed ila grammarka maxaa waaye muhiim waa ingiliishka kiciyaa ingiliishkana muhiim yahay haddaa maanta ingiliish taqaanid grammar aa aqaanin ingiliishka wuxuu yahay male balse haddii maanta ingiliish aad taqaanin grammarna aad taqaanid muhiim waa mar grammarka ardayda muhiim yahay tennis sidoo kale ardayda muhiim yahay english practicalka conversationka muhiim uu yahay marka wax intaas dhan waxaa ka dheehan kartaa ama aad ka baran kartaa janaalkani injineer maxamed ibraahim cumar marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu